Soomaali qurbay ku balantay maantana qoftii Khadra Silima ahayd baa fiisa loogu dhufto waxay u duulaysaa wadanka Canada waagi hore Soomaalidu waxay oran jirtay arli waaqud hal qaraf tago nin quwaa hela nin qaroon hela arli waaqud hadda Soomaalidu waxay tiraahdaa ya qurba noo balana kii doog tagi lahaa kii laba lugood ku tagi lahaa kii diyaarad ku tagi lahaa Soomaali qurbay ku balantay gabadhaas wadanka Djibouti way ku sugan tahay xogta aan helay waxay sheegaysaa in fiise gabadha la siiyay isla markaana hadda ay diyaaradii sugayso hadda koor baa waxa la yiri Khadroy mursal muxuu kaaga tagay uma naagtu miye ka qurux badnaatay oo ka raacay miye ka dadnimo fiicnaatay waxa tiri ninku naagiga ma raacin baasaboor uu iga raacay baasaboor Mareykan baasaboor baa wadaga halkaas jeebka sare laga tusay baasaboor uu iga raacay marka waxa ay isweydiinta mudan mursal mar hadii Canada gabadhiisii hore Khadra Silimo ay maanta u duushay tolow ma mudan doona oo ma laga yaaba mar hadii Mareykankii Donald Trump joogo oo qof Soomaaliya aanu ogolayn inuu galo la isagu qurbadoon buu ahaa inuu iyada muto oo bari ka maalin ay Canada u qaado waa ninkii shiina culay ahaa oo arinta ka hadlaya oo kule nacala shiidan ku yaalay janaalkayga hadaa ku cusub tahay subscribe ku sharaf videoga si share gareeyo asxaabtaada la wadaag like iyo commentigana soo badi sida iga maqleyseen oo aan ku bilaabay Khadra Silimo gabadhaas oo ogtiin in la ciil kaambiyay gabadha anigu dadkii arinteeda sida dhow la socday baan ku jiray waa ka xumaaday sababtoo ah qof oo waxa weeye diniinaag waa kala tagi karaan laakiin qof lagu jiifsaday bay ila muuqatay waxa la yiri ragga kan doqonka ugu liitaa sababtoo ah mar hadaa u siibato ka adkaado waxa weeye kaama kaco gabadha waa la furi jiray gabar waa la furi jiray ninkuna gabar kale gabar waa la guursan jiray wax shida ma lahayn laakiin waxyaabaha muraad dilaac leh oo gabadha ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay garabka u siisay oo arinteeda waxa weeye dadkooda ula socday waxay ahayd ninkiiba markuu gabadha kale helay hodan Cabdiraxmaan markuu helay gabadhiiba waxa weeye tii kale ku xarkay waxa la rabaa qofku inuu jibaarad leeyahay gabadha qabto hadaa bari tiino ay soo dhamaato calafkiinu dhamaado waa inay ixtiraam kala leedihiin laakiin ina qof kale sanka ka marmariso ya heblaay halkaan la maray waa shaqeynay si fiican baa u shaqeynay halkaan ka soo baxa waxa la diiday arintaas ahayd oo gabadha anagu $2 u taageernay dhaqanka Soomaaliyeed bay kam tahay ninku inuu gabar furo diinta ogol oo mid kale guursado wax soo jireen bay ahayd laakiin gabar kale sanka lama mariyo halkaan maray gaariga diifa halkaan ka dhaca waxyaabahaas weeye waxyaabii mahadada aha ee anaga maaragtay aan gabadha u taageernay ugu duceynaynay intii leeykaas u socday aan lahayn ilaahow gaalada u sax ilaahow Canada u sax ilaahow fiisaha kasi ilaahow cadow hojabin ilaahow maxaa ku raad gabadha Canada ka digtay oo la soo dhaweynayo ilaahow natus tiimaanta dhacday gabadha fiisi waa la siiyay xogtaas la soo siiyay leen baa muddo dheer u socday leenka qaabku ku yimi arrimaha inaan galo ma rabo sababtoo ah xog badan kama hayo waxa la qofka haduu xog moog yahay wax xaajada waa bi'iya ma loo gaday ma bogaad baa loo xaraasay ma tolkeeda u kacay ma nin ay maxaa ku raahdaayay Soomaaliyeed baa Ilaahay u sakhiro xasaan ugu dacwooday ma garan karo anigu laakiin waxa la xaqiijiyay baa waxay tahay oo idinkana idin la wadaagayo gabadha leenkii u socday waa ku guuleystay fiisina waa heshay waxay sugto waa in diyaaradii farayga loo soo dejiyo oo halka ka duusho waxaan isweydiinayay waxa weeye ilaa xalay nafsigu qof bini'aadan nafsi laga galo sababtoo ah nafsigu de waa meel kaama jiro inuu dhinac ku soo istaago waa wax dhacda mursal gabadha tolo ma mudan doona baan maanta dhan ilaa xalay ka fikiray markii arintaas ugu soo dhacday sababtoo ah Khadra Silimo waa qof aad u karti badan oo dadnimo badan oo libaaxada hadda koor baa waxa la yiri gabdha u tagay baa la yiri markaas waxa dheen na Khadro naaniga muxuu kaaga tagay naagta kaaga raacay nacala shiidan ku yaal markaas waxa tiri ninku naagiga ma raacine ninku baasaboor buu iga raacay Mareykan buu muraaday in la geeyo ya Soomaali waa tan qurbaa ko maartay iskaga balantay malaha inuu tahriibo iyo ba isu qaban weeday inuu tahriiba laakiin loo qaadan lahaa sababtoo ah intuu joogay intee tahriib Yurub iyo Mareykan ku galay intee Soomaali ku galay reer boorbe dadka ugu badan oo socda oo tahriiba oo Ilaahay u fuudeeyo way ko ka yihiin marka waxa tiri ninku baasaboor buu iga raacay ninku naagiga ma raacin mursal marka waxa weeye wuxuu ahaa nin aan si fiican adduunka ula socon Donald Trump maalintii la doortay buu joojiyay Soomaaliya ila keenaba ama sharci ha lagu keeno ama maxaa ku raahday qaab kale lagu keeno ama waxbarashaha lagu keeno ama fiisa maxaa ku raahday dalxiis lagu keeno qofkuba haduu Soomaali yahayba Soomaaliya kaliya ma hay 7 dal ku jirto Soomaaliya oo islaama buu yiri iima soo gal karaan
ما بأرك كربا مركا حركة حب وأضيق قبصدي واحد مقلد جري سير مقابة يا واحد يوقفك إلهي آمنا ما يشو سير مقابة الله مقن مركا واحد يوقفتها خضراء يا واحد هي وإلهي ببحي إلهي ببحي يدنا markii ay aragtay wadankii in maaragtay odaygii halka qabay isku sharfanaayeen inuu baasaboor ka raacay waxa damacday war dadku gabadhaasiba karti kuma dheera Soomaali kale karti kuma dheera qof fanaanada culus baa tahay war adna garaadada ya lagu dhaafo baasaboorka doono ma qaan cid alla u bixiyay Djibouti indoo inta joogtay dacwada halka uga socotay wata maanta maxaa ku dhahay dacwada u soo dhamaatay marka mursal mar hadii Mareykan aanu teey karin oo meesha Donald Trump fadhiyo oo hatta xaaskiisu ay ka soo yeesay lahayd waara maxaa ku raad Mareykan maxaa ku raadaay muxuu ahaa heesti macnaa ila jabba markii qofkaagu meel dheer ka jiro ama keeni kareen markay lahayd marka mar hadii Mareykankii is soo xiray oo Donald Trump habaar qaba meesha yimi sida looga fujinayaan cid garanayn sanadii wax la jiraa u haray haddana Mareykanku dhaqan waxay u leeyihiin inay 4 sano dib u doortaan madaxweynaha maaragtay ay mar doortaan oo hadda waxa adduunyada dhan ka hadal haysa Donald Trump inuu 4 kale soo noqon doono marka mursal ma mudan doona Khadra ma mudan doona ilaa qurbadoon buu ahaa markay Canada caga dhigto oo tiraado caruurteedii baa u dacoonaya oo rabaa inaan soo kaxaysto ma laga yaabaa inuu dhaho xaajiyo nacala shaytaa ku yaa caruurta abooda ahay DNA-da hal ka wada qaaday igu dar abooda ku dar ma laga yaabaa waa waxa dhici kara iyaday marka talo la gudboon tahay inuu yeesho oo waxa weeye ay tiraahdo khali wali mar hadduu caruurta abooda yahay maaragtay inta halka kaligood hooyo aabahayo me hadhow markay weynaadaan oran lahaayeen ha iska weekendiga ha u yimaado meelaha ya waxa iska dugsadeen inay tiraahdo wareede hodan ha ku geyso Mareykan hodan ha ku geyso Mareykan labadaba maartay iyada u taala laakiin waxa ummadda Soomaaliyeed u sheegaya gabadhaas wiilka abaal fiican bay ku lahayd laakiin hadee wuxuu noqon waayay in ragoo abaal loo galo 2014 anoo Dubai jooga ba gabadhaasi iyo wiilkaas waxa la keenay Dubai waxa ku lahaayeen waxaan u maleynayaa bishii ma July bay ahayd ma June bay ahayd 14 garan ma yimid ahayd safar baa meesha ku yimi marka show baa loo dhigay wiilkaas gabadhaas soo daba jooga dag waxaan ku yiri iyada u indha ah iyada u dhiga ah iyada u afa ma hal karo saasaano eegay waxaan warheed ninkuma ma yeeraanba marka waxaan ku yiri waxaan arki jiray ilmo hooyadii daba socda oo tafta haysta oo markay dukaan wada galaan dhaho hooyo kan ii qaad nacna kabo kana iga dhaha sidaas silamida saas u daba jooga wallahi been idin sheegmayo waxaan warninkuma ma yeeraanba maxay tahay isaga ahaydin la daba galo ilaa dad dhaqan labeen hay Soomaalida waxa u dhaqana xaaska ninkii naagta ka hogaana ninka bahalka u daba marka iyada indho ahayd iyada indho u jeexday iyada fadka soo gelisay iyada dhistay iyada dabada ka waday laakiin nadal ku noqday maalintii ay manaafacaadsan lahayd oo kala qarxay oo maxaan ku raadayay ubad u dhashay oo guri isku barwaaqoobeen oo adduunyada laga bartay oo heer soo gaarsiisay oo la rabay inuu abaal gudo oo iyadana markeeda asaaga dhaafiyo buu asaaga jabiyay waxa weeye dhaqan ragga Soomaaliyeed ahaan jiray ma وقعماده أنا أدبان أنت وقعماده يلكذا قبلداس إلهي بفرش خير أفري ما أنت يدي بكندا تجسه هذا كندا يمريكان اللي بدك كلا قاتي كندا أشلم وقوي مريكان إسرائيل لكن كندا فدقة لود قبلش فدقة عيط وقرطة وضن شلاه إلهي السيء ضدك كنول لباتين مليونين لكن مريكان يجمل الجوان وأفر بقولهم من يكونوا شاي أو وحن كيرو وضن أنت قاصة oo ayr lahayn oo wax kale lahayn oo tacab oo qof iska ordayo marka Canada iyo Mareykan laba dal la isdhaafsan karo maaha dadkii Mareykanka baasaboorada waaweyn ku lahaa ba 24 saac waxay u sii socdaan Canada si geliyo Canada u sii socda marka gabadhaas guri fiican bay tagtay ilaahay idinkii waa horeyna waa ugu ducaynay haddana waa u ducaynaynaa Khadra waxaan ku leenahay meesha martaba dadka aragto hooyo aaba Allah kaaga dhigo ilaahay inta ku hartana ku fuudeeyo dadkaas cadaanka oo fiisaha ilaahay maanta ka siina ilaahay farayga kaaga soo dedejiyo deeado waxa weeye waa ummadda Soomaaliyeed kala joogtana gabadha loo kaco say tahay ha loo soo dhaweeyo baan leenahay mursal waxaan leenahay mursalow wala xaajadaada maanta waa wagashugash weeye dad badan baa wax ku eedeynayaan
gabdhihii ay u dhashay Khadra sinimo ma soo boqdo waxyaabaha nidalnimada ay ka mid tahay gabadha kale oo Mareykanka laga keenay hodan u dhashay buu inta dhinaca haya oo saa haya waxaan maqli jiray oo Soomaalidu ku mahmaahi jirtay ninku intuu gabarey adiga ku rabo caruurtaada raba mahmaahda waxaan u haystay mahmaah khaldan oo maxaa ku dhahday waxba ka jirin laakiin se markaa ninka arkay waxa ii soo baxday inay isaga ku soo baxday baba ii soo baxday markaan arkay waxaan isri waa wixii mahmaah Soomaalidu horaa loo yiri been waa sheegtaa laakiin ma mahmaahdo markaan arkay wiilka iyo xaajadiisa iyo sida uu labadii maxaa ku dhacay ciyaalka ahaa midna madaxa u saaray kuwii uu Hargeysa la joogay oo dhalay oo inta maxaa ku dhacay uu dhalay oo inta maxaa ku dhacday ka soo agtoosayna la leeyahay waa soo booqan kari waay runiyo been ana waxay ma naqan laakiin Soomaalidu waxay sheegto oo wado wuxuun baa ka jira waxaan malaha mahmaahda isaga loo soo baankay marka waxaan ku leeyahay mursalow sida Khadra sheegtay hadii xaajadaadu ahayd baasaboor nin raacay ahayd war Khadra maanta mid bahashay Canada iyo Mareykanna Canadian ka culus adduunyada dhan ba la socdaa war hooy waji sii dhigo maalin waxaan ka isagoo heesay oo intii ka qurux badnaaday oo maartay oo dad ay leeyihiin odaygu nin biil qaat weegiya Mareykan laga soo biilo war Canada baad laga soo biilaya nacala sidaan ku yaale war caruurta gabadhu inta ay wadanka caga dhigayso oo caruurteeda maartay ay u dacwoonayso adigu yeelka adigu ama Hargeysa maxaan ku raado ku banjar ama ina Cabdiraxmaan Mareykan ku kaysay adigu si kasta xajada ha noqotay waxaan ku leenahay war caruurta caruur waa hooyo aabe marka hadii hooyadii ilaahay arinta leenka qabow maxaan ku raada u soo sakhiray war caruurta oo waan ku leenahay ragga Soomaaliyeed waxaan leenahay war nafsiga iska duwa oo khaasatan qofta kula soo jabhaysay oo kula soo jabtay oo maalintii shilin jeebkaaga soo galo ama gabar kale to shilin jeebka ugu jira ama baasaboor jeebka ugu jira aragtaan hadaba ordinina waa inaa qof abaal leh oo qofkii kula soo jabay oo kula soo kifaaxay oo qoobe qaadaba kula soo joogay waa inaa maartay aadan wajiga u bedelin ragga Soomaaliyeedna saasaan kula talinayaa nafsiga hal iska duwo nafsigu waa xun yahay ninkaana inuu qabsado baa laga yaabaa waan u badan tahay sababtoo nafsi baan garanaya nafsi ma soo daaho nafsi waa la iska duwaa waa laga fogaadaa waa laga durkaa nafsi looma durko Khadra waxaan leeyahay maanta guul baa joogtaa adigu waa laga gardaraa Soomaaliya oo dhan baa ku qeylisay anaa hadda maanta halka waxa way qeylo kula soo fadhiya waxa weeye ninkii waa ku furona kale ka raacay taasi dib badan ma ahaateen laakiin in gabar asaaga asanka laga marmariyo wixii anaga na dhibtay oo Soomaaliya oo dhan ay ku gar istaagtay taasi ahayd Monday hadii Canada alla ku geeyo oo hawshaas Ilaahay ku fududeeyo meesha aan nabad cagaha ku dhigto waxa weeye wixii dhacay xalay dhalay ka noqon intaas aan ku leeyahay oday Soomaaliyeed baan ahay dadku waxaan jecelahay inaysan isu niyad xumaan xalay dhalay ka noqon Ilaahay idankiina Canada waa tagaysaa Ilaahay idankiina waa tagaysaa قرب ما أنتم محون نقضي قرب هاشة إلى الاسبوع نقضي ما قرب إلى أضو في سيبا وهاي ستابة فلا أنا إلهي ذيك وهل الساعة لكن قرب هاشة إلى الاسبوع نقضي جرماني بان جوجا يوروب بان جوجا يوقف الشركة اللي سي Soomaaliya waa bari waa soo dhacay ku dhahaya waagi hore waa adkeed xuduudaha iska adka sida loo yimaado adkeed wadooyinka adka maanta ma garanayno Soomaali ayayooyinka waa lug soo galay xaajada maaragtay waa kulay sidii hore adduunyadu maaha adduunyadu dhan baa global iska noqotay marka waxaan ku leeyahay markii halka aad tagto waxa weeye war adu qof raga noqo adigu waxa weeye qof aaragosata kuguma ogi baa leeyahay nacala shiidan ku yeelsan ku leeyahay waa ninkii shiina culeeyahay ummadda Soomaaliyeed ku dhaafay assalamu alaykum warahmatullahi وبركاته.